magaalada Berlin ee looga taliyo dalkani Jarmalka waxaananu bilowgiisa ku jirnaa barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay inaanu wax kaga ogaano safar wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo ku yimid dalkani Jarmalka socdaalka telefishinka caalamiga ee Cable TV uu ku xigtimayo magaalada Berlin ee xarunta dalkani Jarmalka ayaanu ka bilownay magaaladaasi anagoo u safrayna dhinaca magaalada Berlin safarka waxa ugu weheliya gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee dalkani Jarmalka mudane Maxamuud Jaamac Warsame iyo waliba kamaramaanka telefishinka caalamiga ee Cable TV Maxamed Amiin Zaciim wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo markii ugu horeysay booqasho rasmi ah ku yimid dalkani Jarmalka tan iyo laga soo bilaabo 1991 markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday gooniisu taaga inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale aan Maxamuud weydiiyay aragtidiisa ku saabsan guud ahaan sida uu arko socdaalka Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo ku yimid dalkani Jarmalka marka ugu horeysa waan mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland dadaalka iyo kartida dheeraadka uu muujiyay marka xigta waxaan bulshooyinka reer Soomaaliland leeyahay tanu maanta wasiirka arrimaha dibadda muujiyay waxay ka mid tahay ballanqaadyadii aan u ballanqaadnay dadweynihii doorashadii madaxtinimada ee Soomaaliland dhacday sanadkii 2010 haddii Allah awoodda weyne idmo kuwan iyo qaar kalena insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu xiriir aad iyo aad u sareeyo oo ka wanaagsan aanu la yeelano sideen wada ogeyn Mustafa hore xukuumadda kulmiye horteed wadanku wuxuu lahaa wadanku oday samatalisa laakiin maanta waxa ku soo darsamaya ku soo biiray siyaasi u tura ama siyaasi roog cadaaya marka insha Allah waxaan rajaynaynaa himilada uu qaranku hiigsanayo qarankan hiigsanayo inaanu gaarsiino xisbi xaakimka kulmiyana waxaanu u sheegnaa shacab weynaha reer Soomaaliland xisbi xaakimka kulmiye ballanqaadyadiisii uu doorashada ku galay inay fuli doonaan insha Allah hadii Allah awood weyne idmo insha Allah dadaalkeegana inaanu qaar kale oo dheeraad ku dari doono hadii Allah awood weyne idmo inta wanaagsan idilkiin baaqiyaadka hawada naga daawanayo meel kasta oo joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo telefishinka caalamiga ee Cable TV xarunta uu ku leeyahay dalkani Jarmalka aanu idinka diyaarinay safar taariikhi oo markii ugu horeysay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo ku yimi dalkani Jarmalka barta looga arrimiyo ee Berlin mudane ku soo dhawow Jarmalka gaar ahaan Berlin shukran wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar ayaan ugu horreyn waxaan weydiiyay booqashadiisa rasmiga markii ugu horeysay uu ku yimi inuu faahfaahin kooban naga siiyo booqashadani waxay la xidhiidhay dalab aanu u dirnay dowladda Jarmalka oo aan doonaynay inaanu kala hadalno arrimo la xidhiidha danaha iyo maslaxadda shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland oo dhinacyo badan leh waxaan aad markaa ugu faraxsanahay in markii ay dowladda Jarmalka ay dalabkaas soo dhaweysay ay noo hirgashay inaanu booqashadan aanu ku nimaadno dalkan Jarmalka khaasatan magaaladan taariikhda weyn xambaarsan ee Berlin isla markaana ay noo suura gashay inaanu kulamo dhinacyo kala gedisan aanu la yeelano mas'uuliyiin ka tirsan dowladda qaar ka tirsan baarlamaanka dowladdan Jarmalka iyo dad kale oo madax bannaan oo xagga siyaasadda iyo horumarka iyo dhaqaalaha u ololeeya ee dunida soo koraysa dalkan Jarmalka mudane wasiir waxaan ka warhaynaa in dalkan Jarmalka uu yahay mid ka mid ah wadamada dhaqaalaha adduunka hogaamiya gaar ahaan Yurub ma laga yaabaa in maadaama maanta amaba bilowgiinan safarkaagu uu yahay xiriirkii ugu horeeyay rasmi ah Soomaaliland iyo Soomaaliland iyo Jarmalka in xiriirkiinu uu joogto oo halka ka sii wadaan waxaan jecelahay in xiriirka maanta halkan nooga bilaabmay Jarmalka iyo Soomaaliland in uu noqdo xiriir mid dhala oo Soomaaliland shacabkeeda iyo dalkeedaba wax u taro مثلا شلي waxaanu kulan gaar la yeelanay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo aan ka wada hadalnay arrimaha xagga siyaasadda xiriir la leh iyo xagga horumarka waxa kale oo noo suura gashay inaanu aragno mas'uuliyiin ka tirsan banka horumarka ee dalka Jarmalka iyo hay'adda horumarka loo yaqaan GIZ oo labaduba ay muujiyeen in ay jecel yihiin in ay Soomaaliland wax la qabtaan la shaqeeyaan dhawaana aan fulina hadii aan leedmo inay boqosho ku yimaadaan dalka Ingiriiska dalka Soomaaliland inta aan dhamaan qaybta hore sanadkan
xagga horumarka iyo xagga siyaasadaba labadaba sida aad sheegtay waxaanu jecelnahay in xiriirkan aanu noqon mid maalin qura dhacay waxaanu jecelnahay inuu noqdo mid horumar leh oo kora oo wax u tara shacabka reer Somaliland. saacadda wasiir muddadii aad xilkan haysay waxaa la odhan karaa waxaad qaaday dadaalo badan oo diblomaasiyadeed iyo weliba qaar horumarineed maxaa la odhan karaa waxaad ka wasaarad ahaan kaga duwantihiin wasaaradihii hore ee Somaliland dhowr iyo 20 sanadood ay jirtay ka wasaarad ahaan anagu hawlaha aan wadna horta waa hawlo ku dhisan wixii hore ee dalka u qabsoomay oo meel bannaan kamanaan bilaabin hase yeeshee waxaanu isleenahay marka meelo badan laga eego waxaad kusoo kordhiseen aragtiyooyin cusub waxaad kusoo kordhiseen dariiqyo cusub waxaad kusoo kordhiseen fikrado cusub waana kuwa maanta keenay in dowladda Somaliland meel kasta ay tagto in loo qaabilo oo loo arko loona la hadlo sidii dowlad arrimaheedii dowladnimada ay u dhan yihiin inkastoo aan ognahay inaan dalka siyaasiyiin aan la aqoonsanayn haddana waxaan isleenahay waxaad kor qaadeen milgihii siyaasadeed iyo magacii ay Somaliland ay ku lahayd wadamada dibadda hadday Afrika tahay iyo hadda halkan qaaradda Yurub tahay intaba waxa kale oo isleenahay marka laga soo bilaabo shirkii bishii February ee sanadkii hore ka dhacay magaalada London in Somaliland iyo Soomaaliya oo laba dal oo jaara wax badan iska kaashan kara in qadiyadooda siyaasiga ay imika dunidu aragto qadiyad siman oo u baahan inay si siman wada hadlaan oo wixii markaa ayaa ka dhaxeeya ama iskaashiya ama horumara ama siyaasadaba iyagoo simana ka wada hadlaan arrimahaas waxaan isu leenahay qadiyadda Somaliland siyaasiga meel wanaagsan bay dhigeen waxaan rajaynaynaa in halkaa kasii kaxayno oo aan meel halkaa kasii wanaagsan haddii Allah idmo inaan gaarsiino haddii Allah safar rasmi aad ku timaado dalkan Jarmalka isla sidoo kale waxaa igu maqaalaa inaad safar ku sii tahay Den Haag oo ku taala dalkan Holland yana ma markii kugu horeysay boqosho rasmi aad ku tagtaaba mise dhowr jeer hore yana safar ku tagteen maya iyada qudheeda waa markii ugu horeysay aan ka wasiir ahaan aan dalka Holland aan ku tagno aan mas'uuliyiintiisa aragno halkaa waxaanu kulamo la gali doonaa haddii alla idmo xubno ka tirsan wasiirada dalka Holland gaar ahaan xagga wasaaradda arrimaha dibadda oo aanu meelo kale oo Afrika isku aragnay laakiin weli aanay noo soo gelin dalka Holland aanu sidaa ballaaran wada hadal lagu galo kulankaasi wuxuu sida la mid yahay ka halkan dalka Jarmalka imika nooga socda waxaanu arkaynaa xubno ka tirsan dowladda hadday tahay baarlamaanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda khaasatan wasiirka iyo mas'uuliyiin kaleba waanu doonaynaa inaan ka hadalno arrimo la xiriira xagga horumarka mucaawanooyinka dhinaca xagga la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeedda waxaa kaloo noo qorshaysan inaanu dowladda Holland aanu kala hadalno qadiyadda xagga siyaasiga ah ee Somaliland oo markii ugu horeysay dowladda Holland arrimo caynkaas ayna dhex maraan waxaan rajaynaynaa iyadana inay kulamadan sidoo kale noogu dhici doonaan isla safaradaasi saacad wasiir ku guda jirnaa safarkii dhawaan aad ku wehelisay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Dr. Ahmed Mohamed Mahmoud Silaanyo ee aad ku tagteen caasimadda Ingiriiska ee London waxa jira in qaar kamid ah jaaliyadda Somaliland ee halkaas joogtay cabashooyin gaar ahaan wasaaradda ka muujinayeen madaxweynaha hortiisa leelaha noocaas iyaga maxaad siibad u arkaysay safarkaas marka hore wuxuu safar ka dambeeyay arrimaha xagga nabadgelyada warbixintii dowladda Britain ay ka soo saartay dalka Somaliland hase yeeshee kulanka aan ula yeelanay jaaliyadda waxaa jiray nin anigu aanan hore u arag oo ka mid ah jaaliyad Maxamed Haroun Afrayn magaciisu ahaa oo ka muujiyay tixraac iyo warqad xafiiskayga ka soo baxday oo ka hadlaysay arrimaha amniga berigii riboodka ee dowladda Ingiriiska ku soo saartay marka Maxamed wuxuu xigtay sentence ama jumlad ku jirtay warbixinta oo aanu arkaynay dadkuna u arkay in aanu si wacan u fahmin waxa uu Maxamed sheegay in kelmadaas ay muujinaysay in aanu niri waanu ku fashilanay nabadgelyada Somaliland ilaalinteeda laakiin de sidaa ma ahayn marka waxa ahayd baan filayaa faham la'aan dhinaca Maxamed kelmadu waxay ahayd waxaan noo muuqan oo aanan arkayn cabashadan Ingiriisku uu ka muujiyay nabadgelyada Somaliland nooma muuqato oo macnaheedu yahay
si balaayda oo aan dowladda ingiriiska ugu sheegaynay in aanan la qabin fikirka ay qabaan laakiin nasiib darro maxamed waxaan filayaa malaa imika fahmi laakiin markaasi wanaagsan inaanu garan marka arrintaasay ku saabsan isla weli magaalada London maynaan soo dhaafay saacad wasiir waxaa dhawaan qorshaysan in wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya ay halkii ka sii socdaan iyagana maxaad bulshooyinka reer Somaliland iyo kuwa Soomaaliyeed telefishinka caalamiga ee Home Cable TV ka daawanaya maxaad faahfaahin yar oo kooban adigoo kulliba diblomaasiyadiina hoose noo sii gudagali doona arrintaa waxaan jeclahay inaan si wacan horena madaxweynaha qaranku u cadeeyay sidii madaxweynuhu sheegay Somaliland shirarka ay ka qayb gashaa waxa way hadii jeer kuwa ay aad uga fiirsatay in maslaxad ugu jirto siyaasad ahaan iyo dal ahaanba iyo shacab ahaanba mid maslaxad ugu jirto shir aan Somaliland dani ugu jirin dawladdu waxdan oo gaar oo ay ka leedahay ka qaybgalkiisa uu soo kordhinaya runtii ma jiro inkastoo faahfaahinta shirkaasi weli aanay dhamaystirnayn sidii aanu dhowr goor hore ku celinay ilaa imika runtii shakhsiyan anigu markaan imika eego xogta aanu ka haynaa ilaa imika inkastoo aanay dhamaystirnayn haddana wax imika dana waaweyn oo Somaliland halkaa imika ilaa imika nooga muuqda ma jiraan laakiin go-aanka rasmiga waxaan la sugaynaa markaanu ajenda helo markaanu wararka dhammaystiran helo markaanu si wacan uga baaran degno waxtarkiisa iyo waxyeeladiisaba iyadoo markaa dariiqii aan marka hore dhaqanka iyo ulahayn nidaamka la tashiga ah uu dalku ka geli karo kana yeelan doono haddii alla idmo ayaan markaa caddayn doonaa saacad wasiir waxaynu iska gelnaa su-aalihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena dhawaan waxaa ka dhacday jamhuuriyadda Djibouti ee dariskeena ah doorasho waa lagu kala guuleystay sidoo u aragtaan marka ugu horeysa waxaan jecelahay anigoo ku hadlaya magaca shacabka iyo dalka Somaliland in aanu u hambaliyeyno dawladda aanu jaarkanahay ee Djibouti doorashadii baarlamaanka ahayd ee dawaan ka dhacday wararkii ka soo baxay hordhacana waxay muujinayeen in doorashadu ay si nabadgelyaha dalka uga dhacday si xor ahna ay uga dhacday marka arrimaha waxaanu jecelahay inaanu horta marka hore ku hambaliyeyno annagu waanu jecelahay waxaanu nahay dowlad dimuqraadiya oo doorashooyinkan iyo arrimahan xisbiyada iyo dimuqraadiyadda runtii si wanaagsan Somaliland uga socoto marka waanu soo dhaweynaynaa dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka sida amniga ee wanaagsan uga dhaca wadamada jaarka dalka Djibouti waa dal aan walaalnahay waanu soo dhaweynaynaa waanu hambalyeynaa okay intii siyaasadii guud markii laga yimaado ka shakhsi ahaan Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland waxaa jira in golihii dhexe ee xisbiga kulmiye uu loolan ka soo ifbaxayo gudihiina u dhexeeya siyaasi daayir baato firfircoon ma laga yaabo adiga raxankaaga siyaasadeed inaad soo sharaxdo oo aad guddoomiyenimada xisbiga kulmiye amaba madaxweynimada Jamhuuriyadda Somaliland ma kugu jira fikirkaasi marka ugu horeysa horta xisbiga kulmiye waa xisbi ballaaran waa xisbi khibrad dheer oo siyaasi leh waa xisbi ay ku jiraan haldoor fara badan oo reer Somaliland aqoon iyo magacba iyo martabad wanaagsan ba jamhuuriyadda gudaheeda iyo dibaddaba ku leh marka had iyo jeer waa xisbi tartan oo ka socdo waa dhaqan wanaagsan waa waxaan jecelahay xisbiyada kale mandaqadu in ay runtii kaga daydaan doodan imika tilmaamtay xagga xisbiga waa dood socotay imika oo xisbiga xubnihiisa iyo mas'uuliyiintiisa gudaha iyo dibadduba ay had iyo jeer laga doodo halkan waxaa fadhiya mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye dalka Jarmalka doodaha iyo kuwa lamid ah had iyo jeer gudaha iyo dibaddaba aanu ku jirnaa marka waa doodo caafimaad qabto soo dhaweynayno laakiin xisbigu wuxuu leeyahay dariiq system xisbi oo had iyo jeer la maro marka golihiisa congressku waqtigiisu yimaado aan ilaa imika aan cayinayn oo waqti loo qaban markaas ay ku habboon tahay marka afkaarihiisa iyo arrimihiisu inay soo baxaan ciddii markaa doonaysa in ay kuraasta xisbiga isku taagto qof kastoo xisbiga wuxuu leeyahay xaq buu leeyahay inuu tartamo markaasay si ku habboon tahay waxaan filayaa marka in aanay waqtigeedii gaarin marka waan soo dhaweynaa arrimahaas oo aad baad mahadsantahay saacad wasiir su-aasheeda ugu dambaysa adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan telefishinka caalamiga ee Home Cable TV booqashadii kugu horeysay ee aad ku timaado magaalada Berlin xarunta dalka Jarmalka maxaad u soo jeedin lahayd bulshooyinka reer Somaliland ee ka daawanaya telefishinka
shacabka reer Somaliland telefishinka home cable daawanaya waxaan marka ugu horeysa doonaya inaan salaamo halkan ka salaamo si weyn u salaamo waxaan u sheegayaa in inta dibadda ku maqan intayada guduhu waan la soconaay in xaaladda dalku ay aad iyo aad wanaagsan tahay haday nabadgelyo tahay haday tahay xagga arrimaha siyaasadda haday tahay xagga arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada waa dawlad iyo shacab had iyo jeer iskaashanaya challenges fara badan si ku wareegsan yihiin mandaqada ay ku nool yihiin waxayse waxaasoo dhan kaga baxaan waxa weeye wadajir iyo wada shaqayn dawlad iyo shacab iyo golayaal qaran oo wada socda markay timaado qadiyadda Somaliland haday difaaceeda timaado haday xorriyadiisa timaado haday tahay aqoonsi doonadiisa haday timaado iyo haday tahay sidii loo horumarin lahaa intaba waa mid shacabka reer Somaliland ee guduhu iyo dibadduba ay ku midaysan yihiin arrintaas waxaan jecelahay inaan hambaliyo iyo bogaadinba shacabka reer Somaliland meel kasta ay joogaan ba aan u diro waxaan kaloo ugu bishaareynayaa in wada hadallada halkan aan u joogno iyo kuwa aan jecelahay in dalka Holland ba aan ku yeerno inay yihiin kuwa runtii na dhiirigelinaya haddaan nahay mas'uuliyiintii iyo siyaasiyiintii qaranka waa kuwa muujinaya in dareenka qaaradda Yurub ee xagga Somaliland in wax badan iska bedeleen oo loo arko Somaliland dawlad mas'uul ah oo ka tirsan geeska Afrika aqoonsigu ha halkiisa ha joogo laakiin loo arkay dawlad la shaqeyn karo lala yeelan karo horumar iyo siyaasad iyo nabadgelyaba waxaan doonayaa marka arrinta in shacabka reer Somaliland ay aad iyo aad ula socdaan taageeradii ay qarankooda u fidinayeen ay had iyo jeer halka ka wadaan aad iyo aad u mahadsan yahay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo booqasho rasmi ah ku yimi magaalada Berlin ee looga arrimiyo dalkani Jarmalka barnaamijkana waxaa idin la socodsiinaya anigoo Mustafa Xaaji Aadan Haaruun iyo waliba kamaradii Maxamed Amiin kulanti dib waxaanu idinkaga tageynaa fi amaan Allah